بسم الله الرحمن الرحيم waxaa caawa magaalada London heer meeqaam sare loogu soo dhaweeyay Suldaan Barkhad Cabdi Shaybe halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen dhalinyaro reer Somaliland khaasatan bariga iyo bartamaha Somaliland ee caasimadda u tahay Burco dhalinyaradaas oo halka suldaanku kala hadlay waxa uu halka ka soo jeediyay ereyo isugu jiray guubaabin iyo in dalkan iyo qurbaha waxyaabaha ugu fiican laga faa'iideysto dalkii hooyana runtii wax badan laga qabto waxa kale oo uu suldaanku ku dheeraaday sidii la isugu xidhnaan lahaa midnimana wax loogu wada qabsan lahaa suldaanka oo runtii bariyahan dambeba ku sugnaa carigan Ingiriiska ayaa ka soo qayb galay soo dhaweyno hore oo fara badan iyo xaflado kale Suldaan Barkhad Cabdi Shaybe waa suldaan dhalinyaro ah runtii una tafaxaytay sidii uu uga shaqeyn lahaa horumarinta iyo isku dubaridda dhalinyarada mustaqbalka oo isaguna qaybta ka yahay xilligan imika la joogo suldaanka oo inta badan ay isugu jireen hadalkiisu dardaaran iyo duco oo runtii aad u dhiiri gelinayay dhalinyarada hadaladii uu markaa halka uu ka soo jeediyay oo aad u koobnaana iyaga oo kooban waxa kamid ahaa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd waxa sharaf iyo wanaadiya aad ugu mahadnaqaya dhalinyarada reer London sida sharafta leh milgaha leh maamuuska leh igu soo dhaweeyay waan aad iyo aad ugu mahad celinayaa inta soo abaabushay iyo inta ka soo qayb gashayba aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa waa dhalinyaradii reer Togdheer waa dhalinyaradii reer Saaxil waa dhalinyaradii reer Sanaag waa dhalinyaradii reer Saare Sool aad iyo aad baan runtii ay anigana sharaf igu tahay oo maamuus igu tahay oo milki igu tahay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa sida ay sharafteen ii soo dhaweyseen dhalinyaradiina reer London afarta gobol ee Somaliland ka soo jeeda aad iyo aad baan xafladda qiimaha badan sharafka badan aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa aadna waa u mahadsantihiin sida ay igu soo dhaweyseen London والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه runtii maaragtay chance kan uga faa'iideysto dhalinyarada reer Burco oo waxaan ku boorinayaa inaad gobolkiina Togdheer wax u qabataan haday ugaha caafimaadka tahay ugaha waxbarashada tahay garoonkii kubadda cagta oo ay ogtihiin maanta inuu bilaa roog yahay dhalinyarada reer Burco waxaan jecelahay inay gacmaha is qabsadaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan reer Burco la hadlayaa dhalinyarada reer Burco la hadlayaa dhalinyarada afarta gobol ee Somaliland baa la hadlayaa dhamaanba dhalinyarada reer Somaliland ee lixda gobol tirtan waxa leeyahay dalkiina iyo dadkiina hadaa qurba joogtihiin jaaniska haysataan caafimaadka haysataan shaqada haysataan ka faa'iideysta inta biil waa dirtaan dul waa iibsataan baabuur waa iibisaan dhaqaalihiina aad garaysaan waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad talada raacisaan oo maaragtay fikirkiina raacisaan oo aqoontiina raacisaan waxaan mar labaadna jaaniska runtii uga faa'iideysanayaa caruur yar baynu halkan ku dhalay jiilkii saddexaad baa maanta jooga jiilkaas saddexaad haddaynaan dalkeena geynin haddaynaan dhulkeena hooyo soo marin wax allaale wax ay maaragtay ay ka istifiidaynaa ma jirto aynu ubadka yareedna dalkii geyno dhul gaale baynu joognaa ilaahay ubadka ubad baariya ilaahay ay nooga dhigo ooriyooyinka kuwa wanaagsan oo khayr qaba ilaahay ay nooga dhigo ilaahay inaga gaalada hay naga wada nabadgeliyo wixii islaam ay xanuunsanayeen Allah ha shaafiyo wixii dhintayna Allah ha naxariisto aad iyo aad baan dhalinyarada reer London aad iyo aad baan uga mahad celinayaa soo dhaweynta qiimaha badan leh insha Allah dalkii markaa noogu timaadaan waa idin soo dhaweynaynaa